عليه سوق عليه سوق جوج بالجوج عليه بالخير ودين عليه halkan waa degmada wadajir magaalada Muqdisho waa meel wada ah laami ah qoraxdana aad u saxay wiilkan waa duriyaan tabaaya gaarka ah qabo bal waan raaci doonaa gurigiisa aan u raaci doonaa markaasi xaalkiisa dhabta ah iyo noloshiisa soo bandhigo أنتي قروب ما هيجين كرتا يا وأنا طلعنا كرتا سمع أي عليه نود ويل كماله وإيش قوت الماء من الاستاد يا أنا وكجرنا شق معلومات كأنا إسلامر كأنا شقة وجدنا يعني وحنا رجناي ويل كير ومجلس نوش أبشر وحنا كم من سنة شقة عن جدنا ويل كير نلشي حالته كسوقين هاي inaan idin soo bandhigno Abshir waa geesi codkar ah isla markaana garan og ruuxii abaal u galo inkastoo ay adag tahay in la fahmo hadalka Abshir haddana waa wiil maskaxdiisu ay fiyowdahay balse qadarta Alle ay haleeshay halkan idin muuqato waa guriga uu ku nool yahay Abshir isaga ayaa na keenay guriga waxaana isla markiiba naga hortimid Xaajiye Nuuro oo ah ayayda dhashay hooyada Abshir Xaajiye Nuuro oo aan ka wareysanay nolosha Abshir iyo tan qoyska ayaa ii sheegtay in nolosha qoyska ay tahay mid liidata taasina ay ku qasabtay in Abshir oo naafo ka ah qaar ka dambe inuu nolosha qoyska ka dabaro sadaqada ay siiyaan dadka waa mahadsantihiin maadaama aad wiilkayga banaanka socda aragteen oo ii keenteen islaamnimada waaye marka waana ku mahadsantihiin waa filayna anaga dad islaamnimo wax noogu qabto muslina oo noo yimaado oo baahideena arka nolosha wiilkan aad u jeedid waa sidaad ka aragtaan intaan 13 sano jiro anigu gacantayda ku jiray hooyadiis waa dhashay xataa naaskeeda ma noogin oo waa ka jiratay asaguna waa ka jiraday aabiisna waa la dilay soo urka hooyadiis jiro marka inta ana haay haddana aniga haaya nolosheena midaad hadda u jeediin waay wax meel noogu harsan ma jirto marka islaankay u taalaa kistan yaroo hadda banaanka u baxayna muddo gaaban oo barayay dada muslimiin gaariyaashan waa la soo siiyay nin kale ku waraaya male anigu wiil wada ma qabo marka waa iska garguurtaa mar gurguursa ta looma ogolo oo dhuumana ama andho bixin wadankan wadan ma tagin qaraxana dhaad saasan u celinooyina 24 sababta uu baxay marka maxay tahay macnaha waxa bartay dadka wax siinayaan oo aragay haduu banaanka tago hal cunugan to ka yimid gacanta wax loo saarayo bar waxaas dad soo heleelo oo la soo noqdo qofta u keeno uu imaanayo aniga waa qof kale meel uma joogto marka waa iska sabraayo markii dabka aan shida kar waa shita markii aan shida waayeen waa qof walaalaho ii dhawaan ka doonta saas leeyahay Abshir oo si dareen leh iga codsaday inuu la hadlo bulshada ayaa ka sheekeynaya dhibka uu ku qabo wadooyinka Muqdisho abaed awaaji insha Allah roodo bobad awaaji insha Allah siyaadeen Abshir waa nin xiskiisa iyo maskaxdiisa ay taam yihiin ilaahina aqal ku maneystay Abshir waxa uu gartay in uu noo mahad celiyo maadaama aan guriga keenay oo aan doonayna caawino isaga oo markaasi noo duceeyay in ilaahay maartay uu
ajar naga siiyo hawsha aan qabanayna. Waa nin garashadiisu ay aad u fiican tahay. sidoo kale waxa uu u duceeyay ummadda Soomaaliyeed ee uu doonaya inay soo caawiyaan wuxuuna ka codsaday Abshir in mooto bajaaj oo biilka cidda laga hela isla markaana u shaqeysa in ummadda Soomaaliyeed ay u gadaan. Abshirna waxaad kala soo xiriiri kartaan nambarka aydiisa oo gacanta ku haysa. waxaan rajeynayaa in ummadda Soomaaliyeed codsigiisa ay u tixgelin doonaan isla markaana loo iibin doono bajaajtaasi uu dalbaday. nambarkayga furahayga waa 5 konton 7 8 6 4 5. Ismaaciil Aadan Bariisa, telefishinka Somali Cable, magaalada Muqdisho.